arrimaha bulshada wasiir ku-xigeenka qorsheynta wasiir ku-xigeenka warfaafinta wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga agaasimayaasha guud saddexdayna la jooga martishaafta kale dhammaantiin oo dad daneeya technology-ga iyo kolba halkay marayso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaradahan waxaa noo farxada inaan halkan ku daahfurno oon ku soo bandhigno isla markaana aanu la wadaagno bulshada reer Somaliland in uu dhammaystirmay samaynta iyo tijaabinta iyo ka shaqaysiinta degalka uu qaranku leeyahay ama national portal-ka aan ugu talagalay in xogtaay hay'adaha dawladda kala duwan hadday tahay wasaarad iyo hay'ad madax bannaan iyo hadday yihiin maaragtay hay'adaha kale ku xidhan dawladda inay xogtooda si fudud ugu soo bandhigi karaan sida wasiirku sheegay wasiir ku-xigeenku xilliyadii sagaashanadii bay bilaabantay tan imika laakiin naga socono waxa la web 3 waxa ay generationkii saddexaad weeyii oo qolada bariga lagu bilaabay wax badan baa iska bedelay waxa kamid ah waxa iska bedelay in lagu daro in streamline-ka in social media ama baraha bulshada lagu xidho sida uu arki doono qof kasta oo portal-kana website-yadan galaa laan kastoo dawladeed hadday tahay wasaarad ama hay'ad madax bannaan waxa ku xidhan website-keeda account-nada ay ku leeyihiin baraha bulshada hadday tahay Twitter-ka Facebook-ka Instagram-ka Pinterest-ka wixii kale u baahdaan marka la isku xidho waxa la rabaa xog labada dhanba xaggan laga heli karo baraha bulshada iyo maaragtay xagga website-yada bakal farxad bay noo tahay wasaaradahan muddo soo socotay ilaa 3 bilood waxa socday dhisitaankiisa iyo maaragtay in farsamaha la dhammaystiro intii dambana waxaanu la wadaagaynay hay'adaha kala duwan oo ilaa 5 website bay ku dhow yihiin in xog dhammaystiran laga helo in badan baa loo soo xidhay laamaha dawladda kala duwan cidda inta badan gacanta ku haystaan waxa ahayd waaxaha IT-ga laamaha dawladda u qaabilsan xog badan bay nala soo wadaageen inkastoo marka qaarkood xogahan dhammaystirnay alxamdulillah weli hadda xogta uu baahan yahay portal-ku ma dhammaystirna laakiin meel laga dhaqaaqi karay maanta uu taagan yahay saasaan ku yahay degalka kaliya ee xogta laamaha dawladdu ay xog laga heli karayo sidaan sheegnayna e-government-ka waa wejigiisa koowaad Somaliland waxaan qaadanay Gartner model e-government-ka qaybo fara badan baa loo hirgeliyaa ama modelo kala duwan bay leedahay marka waxaan qaadanay modelka Gartner waa company inta badan technology-ga iyo cilmi baaristeeda iyo sida loo hirgeliyo waxa badan ka soo saara marka wuxuu ka dhigay Facebook ka dhigay kan hore ee web presence-ga waxa la yiraahdo ama in xogta laga helo waxa weeye internet-ka waa qaybtii koowaad weeyii marka aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan u diyaarinay in portal-kan hadhowtooda systemyada laamaha dawladdu leeyihiin si fudud loogu xidho wasaaradda imika u baahan salaamay wasaaradda shaqagelinta kale waxay qaybiyaan imika kaalmo kala duwan waliba rabadaanta ilaahay khayr badan hasiiyo maalmaha badan bay qaybinayeen halka imika si maaragtay manual loogu qaybinayo istudiyoyaasha gobolada ay si manual u soo gudbinayaan in website-ka ay leedahay wasaaraddu loogu xidhi karo system loo sameeyo deedna ay online ay ka dhigi karaan wasaaraddu waliba waa sidaas waxa ka mid ah wasaaradda maaragtay gaadiidka kale ruqsadda wadista kale qofka haday u baahan in 6 gobol kale si fudud ay siin karto marka taana u diyaarinay waxa weeye website kaliya maaha waxaan ugu talagalnay laan kasta dawladdi in ay ku bixin karto adeegeeda qaab online ah qofka muwaadinka isagoo jooga gurigiisa xafiiskiisa shaqadiisa isagoo haysta inuu maaragtay uu adeeg dalban karo oo adeeg bilaabi karo oo waxa weeye shuruudihiisa buuxin karo iyo inuu heli karo qaab online marka waa wajigii koowaad oo ku diyaarinay sida maaragtay qof kasta oo portal-ka laga arki doono waxa ku jira xog kooban oo ka hadlaysa Somaliland taariikhdii hore, dhaqanka Somaliland, dastuurka, waxa ku jira
xidhiidhada gaarka ah saddexdii waaxoode dowladnimaduna way ku jirtaa oo waaxdii fulinta iyo waaxda sharci dejinta iyo waaxda garsoorku intaba way leeyihiin websaytyadoodii waxa dheer oo inta badan laga heli jirin websaytyada laamaha dowladda waxa la yidhaha faafinta hadday noqoto siyaasadaha iyo shuruucda halbeegyada maaragtay iyo wixii kale la xidhiidha laan walo hay-ad kasta ama wasaaraddu laba inay faafinteeda gaar ugu jirto mid guud oo qaran ku jiro iyo dhammaan shuruucdoo dhan in hal meel laga wada helo oo laamaha dowladda ugu badan ee laga raadiyo waxa weeye in laga helo shuruuc sharci qofku muxuu ogolyahay maxaan ogolayn tusaalahaan wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada maxay ka qabtaa hawsha iyo taas si fudud in markaa looga heli karo inta siyaasadood iyo shuruucda iyo shuruudaha tusaalahaan haddii la xirinayo waxa weeye qandaraasyadoo kale hay-adda qandaraasyada ugu jirtay maamul wanaagga ugu jirtay marka in laga helo faafin maaragtay gaara iyo tii guud intii ku jirtay xafiiska gariiqaanka guud baana gacanta inta badan qaabilsan waxa intaas kale oo dhan raacsan adeeg kastoo ay bixiso laan dowladeed in iyadana laga bixiyo xog yaro kooban oo qofka tusaalahaan haddii la idhaa adeeggaas lagu qabanayo muxuu adeegan yahay qeexi karta sheegi karta marka intaanu sheegnay waxa kaloo iyadana ku jirta qayb aan u samaynay canaawintii adarsyada lagala xiriiraya laamaha dowladda oo dhan hadday tahay telefon iyo hadday tahay adress oo nim gacanta ku hayno website-ka iyo emailka intuba si markaa u fududaato in lala xiriiri karo laamaha dowladda ujeedadeena waxa weeye inaan xog una soo bandhigin laakiin la fududeeyo qaabka loola xidhi karo laamaha dowladda oo dhan halkay u socoto wasaaradda ay doonaysa qaranka inuu socdo waxa la yidhaha open data oo ah xogta furan waxyaaba maamul wanaaguna inta badan ka mid tahay oo ah in muwaadiniintu ay heli karaan xog dhammaystiran oo laamaha dowladda ay uga baahan yihiin ama tusaale ahaan inay maaragtay ay awood u heli karaan inay wax weydiin karaan oo ay iman kara in uu dhaco xidhiidh waxaa la yidhaha open data kale waa halka imika ay u socdaan dowladuhu qof kastoo tusaale ahaan u baahan wasaaraddaasi sanadka 2020 maxay qabatay miisaaniyaddii la siiyey maxay ku qabatay maxaa ka hirgalay sidee wax u dhaceen waa open data halkaynu u soconno waana meel aynu maaragtay aynu gaari doonno waana qaybaha maamulaha ka mid ah marka kolley waa in yaroo kooban wax badan kama sheegi karno waxaan kusoo gebagabeyn waxa weeye waa qaybtii koowaad ee aynu ugu talagalnay e-governmentka sidaa hore u sheegay wasiirka xaynka warfaafintuna waxay u baahan tahay shaqo fara badan in dhowr iyo kontonka website si maalinla ah loo cusboonaysiiyo xogta gelaysa hore waxaan arkaynay tusaale ahaan maalmihi aan xogta wadnay wasaaradda ugu dambeysay xog la geliyay 2016 inuu marin 4 sano magaca wasaaradda website-ka sita xog lama gelin haba yaraatee taa macnaheedu waxa weeye inaan cidi daba gelin kolley wasaaradda warfaafintu iyadoo u qaabilsan qaranka wixii warbaahina iyo maaragtay in wasaaradda ay afayeenka xukuumadda annaguna dhinacii aan gelinay farsamahaanta waxaan ka wada shaqayn doonaa in dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan ay maaragtay xogtooda cusboonaysiiyaan noqoto tii ugu dambeysay maaragtay waxa weeye qof walba muwaadiniba uu ku helayay ama ciddii kale danaynaysaa saan hore u sheegnay ugu dambeyntii waxaan hore wasaarad ahaan u hirgelinay dhowr boqol oo email oo ugu talagalnay laamaha dowladda ilaa imika waxaa lagu isticmaalaa wax ka yar 30% ka degtid staticska inkastoo maalinta ka dambaysta ay maaragtay korayso tusaale ahaan imika anaga waxa la joogtay agaasimaha guud ee wasaaradda Marwa Amina waxa ka wareegay agaasimaha hore injineer Cali maanta xil wareejinta emailku ma la wareegtay magaciis maaragtay agaasimaha hore guud baa laga bedelay keeda lagu bedelay intii hore xiriiryo hore haysay way halkii ka sii socotaa wasaaradda kale saasay la mid haayeen berigi dooyada madaxweynuhu agaasimayaasha guud uu ku sameeyay maaragtay kala bedelka waxaan rabnaa markaa in dhammaan ay gaadho laamaha dowladda oo dhan taasoo kale marka emailadaas waxay wasaaradda hirgelisay website-dana waan naga iminka samaynay waxa kale jirtay inaan u samaynay verification iyo in la rasmiyeeyo akaunada laamaha dowladda ku leeyihiin baraha bulshada saddexdaa waxaan isugu xidhaynay in xogta ka soo baxaysta laamaha dowladdu ay noqdo xog la isku halayn karo sida awgeed waxa imka yaraaday
beejijkii been abuurka ahaa ee laga samayn jiray laamaha dawladdu aad u hoos ugu dhacay intii aan bilownay mashruuca verification waayo waxa fududaanaya marka account-ka ama page-ka uu ku leeyahay laan dawladdu ay ku leedahay baraha bulshada marka laga dhigo mid rasmi ah mid been abuur in laga sameeyaa aad u adkaanaysa xataa haddii la sameeyo in si fudud loo xidha ayaa maaragtay iyo suurtagelaysa marka muddadii aan wadnay waxa hoos aad ugu dhacay page-kii iyo account-yadii been abuurka ah ee laga sameeyay laamaha dawladda in badan baan u sameynay inta hadhayna kulley muddo kooban inay kusoo dhammaystirmaan baan aad rajaynaa marka saddexda emailada rasmiga ah iyo tan imika portalkeenu furnay iyo rasmiyeynta account-yadii page-ka baraha bulshadu saddexda marka la isku xidho waxa ka soo baxay in xogta dawladdu noqoto xog la isku halayn karo oo la hubo inay ka soo baxday xafiis dawladeed ugu muhiimsanna maanta waxa weeye waliba xilligan baraha bulshada u batay waxa fara badan dacaayada propagandada waxa badan been abuurka in qofku iska dhigo waxaan ahayn inkastoo marka qaarkood ay meelaha qaarkood caqabad jiraan wali aan wada xalismay laakiin haddana inta badan waxa weeye wax badan bay tartay kulley sida la sheegayna dunidu imika wuxuu socotaa in laga faa'iideysto culumta ilaahay dadka u sakhiray ee technology-ga bulshada waliba sida uga faa'iideysto technology-ga horumarku fudud yahay in badan man hore sheegnay haddii xoolaheena inta badan dhaqaalaheena ku tiirsanaa oo suuqyadoodu ay yar adkaadeen mar la furo mar la xidhayo cid kale gacanteeda ku jirto beeraha laftigooda inkastoo ilaahay raxmad imika inoo dejiyay laakiin haddana xilliyada roobku da'ayo xilliyo fadhiya maaha sanadka qaar buu hore u da'aya roobku sanadada qaarkood dib u dhacaya meesha laakiin aynu gacanta mar walba ku dhigi karayno ee fudud ee dhaqaalaheena uu ka dhigi karno dhaqaale adduunka la jaan qaada oo iyadoo laga faa'iideysto technology-ga kaana waa kulley hawl inoo wataa dhammaanteen wasaaraddu way hogaaminaysaa laakiin cid wal qof kastoo reer Somaliland waa hawl u taala aadna u baahsantiin waxaad ku mahadnaqayeen inaad ka soo qayb gasheen waqtigiina noo horteen inaad nagala soo qayb gashaan xafladan waan idin mahadnaqayaa ilaahayna idinka qayb galo hay nagana aqbal acmaasheena bisha Ramadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh